waan ka xumahay wiilka yarka ee qabiil dartiis isku dilay aad iyo aad ayaan uga xumahay ilaahay ha u naxariisto runtii waa arin laga argagaxa in qabiil maaragtay la isku tooreeyo marna la isku dilo waan ka xumahay cunug yar ayuu ahaa ilaahay ha u naxariisto walaalayaal waad arkayseen nimankii xalay cayaarayay runtii inaysan maaragtay qabiil aysan maaragtay inay isku kala kacsadaan kaliya ay doonayeen waa fahanteen aan maleynaya xalay waxaan maleynaa hal daqiiqo marka ay ku jireen 24,000 oo qof ayaa daawana oo wax yar dhiman 300 oo qof dhinin markaas ayada ah oo la iskugu soo xoomay waad arkayseen sida iskugu faraxsanaayeen waad arkayseen qof walba markii qof laga raayo sida uu amaanayo qabiilka kale runtii aad iyo aad waxaan uga xumahay dadka midiyaha qabiil dartiis iskugu qaatay ama maaragtay guryaha u gaday ama dahabkooda u gaday ama gabdhihii lagu furay aad iyo aad ayaan taas uga xumahay hore ayaan uga soo hadlo dadkan waxay rabaan ayna dhahay inay isku kala kacsadaan ama lacag raadis ma garateen ayay ka ahayd because dad isdagaalsan ama dad maaragtay cadowtinimo ka dhaxaysa maysan ahayn waad arkayseen naanaa iga dheh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaashiin ubaad soo dhawaada isku soo noqod wanaagsan idinku caafimaad qaba iyo anigu caafimaad qaba maasha allah waayadan waan kala maqnayn walaalayaal maasha allah sii share gareeyana ka siiya subscribe kana inta igu soo biirtay waan arkayaa maasha allah waa maatantii walaalahayga qaaliga ee aan jeclahay haddana subscribe ka sii wada nana ka sii waa walaashiin maasha allah soo dhawaada kal iyo laab runtii waxaan aad iyo aad aan maaragtay u cambaaraynayaa nin weyn oo maaragtay ee ku jira maaragtay youtuber ah oo caan ah inuu maaragtay uu yiraahdo waayadii horta dambe oo dhan dhinac hal qabiil ayuu u badnaa hal qabiil kaliya ayuu maaragtay libaaxyo kasoo dhigaya difaacaya waa wareey way reyn doonaan ree hebel ayuu lahaa ma garat ya haddana maanta markii maaragtay la kala raayay de meesha waa game cid cadowtinimo isku qabta malahan oo Falastiin iyo Yahuud ma dirirayaane wuxuu yiri muxuu ahaay carabtii way naga adkaatay carabtii xumeed waa ay naga adkaatay horta hadii ay carab yihiin dadka maaragtay Soomaalida qayb kamid hadii ay carab tahay af carabiga ku hadli lahaayeen jinsiyadooda ay kaan lahaayeen meelaha maaragtay Ilaahay ku abuur carabta ayay maaragtay ay ka soo jeedi lahaayeen ama ay joogi lahaayeen ma fahantay marka dadka niyaha ha isku dirin ninkaas aan sheegayo labada qabiil midba ma uusan ka dhalan oo maaragtay muxuu ahaay isku diraayo mar walba isku soo feenaya ama isku dilaayo waa nin ka soo jeeda beela kamida Soomaalida beela kamida ayuu ka soo jeedaa labada koox ee ciyaaraya midba ma uusan ahayn ilaa hadda ayuu dirmada iyo dagaalka u wadaa laakiin waa ka xumahay waad arkayseen Captain Ayub iyo ninka la yiraahdo Cabdiqaadir Booska sida ay isku ahaayeen waad arkayseen dad walaalo oo isjecel ma garat dad walaalahe oo isjecel ayay ahaayeen ma fahantay dadka diyaaradaha iyo adduunka gadayana de waxay dhaheen qofba mar wuxuu dhahay aniga waxaan ku sadaqeynayaa masaakiinta hal shilin hadduu igu soo leexdo masaakiinta horteena ku dhaaranayeen ilaahay baa garanaya inay qaadanayaan inay sadaqeyn doonaan allahu aclam ilaahay baa garanaya laakiin Soomaaliya waxay inii sheegay in aqligan nagala xaday oo maaragtay maamo dhan ee dahabkeeda u gaday to waxay lahayd guri yar oo cariish baan leeyahay waan gadayaa to waxaan ku irninkiiba iska furtay aqliga ayaa nagala xaday ma garateen hawiye iyo daarood waa dadka iskugu jecel ee is dhalay ee waxaan ku ir wiil iyo waalid isku ah walaalayaal maanta ani hadda qof hada isbarana ama rag ama dumar ha noqdee yaa ta Soomaaliya ta ka carti yaa ta dilas dhaq ree hebel ama kana dilas dhaq waxba la isku noqonayaa qoomiyad manin anaka waxaan nahay ul iyo dir dad is dhalay oo isla dhashay ayaa nahay ma fahanteen qoomiyad waxa la dhahaa dad isku yimid anaga isku maana imaan waxaan nahay qoomiyad manihin qabiil hal qabiila isku nahay Soomaali nahay ma garateen dad islaam aan nahay Soomaaliyan ka nahay oo iyo diir ayaan isku nahay walaalayaal social media cadowtinimada iyo naagaha maaragtay isku soo duula iyo ragga maaragtay gurbaanada u tumaa in la isdilo waa waxa wadankeena naga soo qaxiyay dagaal iyo maaragtay iyo qabqable iyo maaragtay iyo dad isku dirid iyo maaragtay xabad iyo maaragtay hadii aan maaragtay dad dawlad la ama dad maaragtay fiican sanka naga ma qabsadin caalamku meel aan ku daadsanayn malahan hadii ay qabiilad ay wax tarayso ma garateen marka siilka soo koraay in la tababaro oo qabiil lagu anqariyo de waa fool xumo waxa uu dadka ka arkuuna asagana ku dhaqmaya cunug yar waxa arkaysaa shinjira oo maaragtay yaa tahdii la yiraahdo anigoo ree hebel oo sidana u leeyahay waa wuxuu waalidkiisa dadka Soomaalida uu ka maqlay ama dariska uu ka maqlay runtii
sanadadan dambe waxaa soo badanaysa in maaragtay jifo laba isla dhalato ilmaadeer waxaa arkay laba calan kala wataan jifalaan iyo jufuqlaan iyo quluqluuqlaan iyo maxay laamilaan iyo adduunyada dhan wada laan wada noqoto ma garateen anagoo hal qoomiyad bahalkii hal muxuu ahayd walaalo isku nahay oo uli dir isku ah ayeeday abshaxankay maaragtay qof walba maaragtay duu abtirsado waa la isku soo wada dhacaya Soomaali laga arkay wax haday abtirsadaan isku soo dhacaya Soomaaliya laga arkay arag hadda qabiilada Kenya dega Kikuyu Kikuyu ku hadlaysaa Mukambi ku hadlaysaa dadka la yiraahdo muxuu ahayd kala jiini qabiilo badan waxaa jira maaragtay la isku keenay international waxa afka Kiswahiliga ma garateen Ethiopia waad aragteen walaalayaal hadii walaalihiin muxuu isku af noqon wayn annaga sababta isku af u noqonay ma iyo maxaa tirina wuu fahmayaa mayna wuu fahmayaa ka anigu hadlo garanaya ana asaga wuxuu ku hadlo garanaya halkaas waxay ka cadahay inaan walaalanahay dad isjecelaanahay walaalayaal yaan kala geynin yaan qabiil maaragta qabriga kuma salaaxay aborna kaama salaaxay iska baday aabi ku dhalan qabriga salaaxeen aborka salaaxeenin in qabiilana maanta hada xanuunsata ka war qabin cid ku ogaan jirin marka walaalayaal ilaahayna ka cabsada ma garateen oo qabiil iyo maaragta dadkan la isku soo feenayo hal iska daayo maanta qabiil qarrac ano dhahay hadii nafta iga dhacdo eelunaara noqonaya qabiil la isku gartaa la yiri hal isku qaaraamaa la yiri hal lagu walaaloobaa la yiri ma ahana midiye iyo qori iyo xabado hal isku qaata ma ahan waad arkayseen labadin adigu daarood amaan ay daarood kan waaya dhaana iga dhe waa walaalahay ula Cabdiqaadir Booska ninka kale hawiye amaana lagu amaanayay istaaga uga kacay ma garateen waxaan waa game waxaan caanimo iyo waxay ka sii rabaan falow badan waxay ka rabaan lacag iyo aqliga linka xadin dadkan way wada dhasheen waa dad walaala Soomaaliyan nahay ma garateen aniga in la hadla hawi daarooda ay dhalay waa iska kay dhaleen ma garateen waa dad isjecel isku af ma garatay isku diinaan nahay meel ma kala jireen abtigeena adeerkeen meel ma kala jiraan ma garatay ninka ku guursana ama ninka ku qabo ama ninka ilmaha u dhali doontid cid uu yahay ma garan kartid marka inaad maaragtay cuqdad iyo waxaan jirin iyo maaragtay meesha la keeno waa foolxumo ama dadka la isku diro day hada qof waxa arkay markii hore maaragtay hawiyaha dhexdiisa caan jir oo maanta hawiye la safan daaroodku waxa arkaysaa isla daaroodkii daarood mid la dhashay caynaayo hadana markay qabiil noqotaba naana iga dhaso dhahay marka walaalaha qaaliga aan jecelahay waa walaashin Ugbaad channelka daawanaysiin waa Ugbaad official ani waxaan ku waaninayaa in qabiil aad iska deysaan ama maaragtay muxuu ahayd Soomaalinimo ayaana deeqdo walaalayaal arkayseen xalay toole naana iga dhaa ka socotay lacag la gulgulsanay akoonadooda u buuxo dad ceyr heestaa lacag ugu sii dareyseen marka laanigan jecelahay hadalkeena in ku badiyo ma rabo qabiil iska daay intaas ay waana iga taaniga xumaana iga maahan qabyaaladiista ma ihi ilaa hadda qabiil qof walba leeyahay tahay Ugbaadey noo sheeg qabiilkayga waa Soomaaliyeen ka ahay ma garateen anigu waxaan xanaaqaa markay maaragtay naag xun oo social media fadhida adeerkay abeel dhashay ama oogay caayis bisan xanaaqaanay ma garat qabiil shaqadeeda maahan maanta dhadii lacayna maxay qosayaan qabiil ay warqab la ka oogay abeey anay dhalay waa familkay Soomaaliya marka walaalahaygan jeclaa si shir gareynana ka siiya subscribe kana saara waa walaashiin oo ina leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عرفتون كانوا بلا من دونا دو إلى إرادة إلى التالي إن شاء الله واسكور قبل نبيين من الكريم